wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha xusbul xaakinka kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha xusbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo muddo dhowr maalmood oo socdaal shaqo ku joogay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa kulan ballaaran la qaatay jaaliyada Soomaaliland ee ku nool magaalada Nairobi. wafdigaasi uu hogaaminayo gudoomiyaha Muuse Biixi Cabdi oo ay kamid ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah Dr. Saad Cali Shire, wasiirka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo isagu xafladda ka hor howlo shaqo dib ugu soo laabtay, waxaana xafladdaasi sidoo kale kala soo qayb galay wasiirkii hore ganacsiga Maxamed Cabdullaahi Cumar iyo sidoo kale safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya Cabdullaahi Cabdi Cali. xafladdan oo ay ka soo qayb galeen salaadiin cuqaal waxgarad siyaasiyiin dhalinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdhaba ayaa ka qabsoontay xarunta KICC ee magaalada Nairobi, iyadoo ujeedada xafladduna ay ahayd soo dhaweynta wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo gudoomiye Muuse Biixi Cabdi, geesta kalena la isku xog wareysanayo iyadoo ay mas'uuliyiintu jaaliyada uga warbixiyeen howlihii shaqo ay u yimaadeen magaalada Nairobi iyo waxyaabihii uga qabsoomay. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah howlwadeennada jaaliyada Soomaaliland ee magaalada Nairobi iyo sidoo kale gudoomiyaha jaaliyada Siciid Dubad Cali. ku soo dhaweynayna booqashadaadana waad ku mahadsan tahay adigii wasiirada kula socdaba, anigana hadalkaygu waa soo dhaweynun. jaaliyaduna waa isku duuban tahay, waa midaysan tahay, waana mahadsantihiin dhammaantiinba. halkan waxaa ku dhan jaaliyadii Soomaaliland, waxayna dhaqan u leedahay marka ay madaxda qaranku yimaadaan in ay si wada jira ku soo dhaweeyaan, ha u badnaadaan taageerayaasha xusbiga kulmiye madaxda u tahay, laakiin waa lagu dhayay. waxaan codsanayna kaliya hawshii tahriibka oo ay antii dhaweyta dhacday musiibo culus ahayd in guddi degdeg laga qabto, in hawshaas maaragtay meel fiican la mariyo. geesta kalena waxaa halkaasi hadallo koobkooban ka soo jeediyey safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya Cabdullaahi Cabdi Cali iyo sidoo kale wasiirkii hore ganacsiga Maxamed Cabdullaahi Cumar iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah Dr. Saad Cali Shire. 18 May baa aniga hadda isugaysa gidigeena weyn wada sugaysa mid kale waxaan doonaynaa inaa ogaataan horta mid wasiirkuna waa jooga lacag xagga laga soo dirayo Hargeysa Soomaaliland lacag laga soo dirayo la soo diri jiray ma jirto sababtoo abaaraha awgood. marka waa inaan anagu gudaheena jeebkeena waxaan aan bixin karno iska ururino. anigu imka waxaan u badanahay dalkan Kenya oo aan joogo inta badan xogaal baan ahay jaaliyada reer Soomaaliland si ay isku duuban tahay, siday wada shaqeyso iyo siday meel uga soo wada jeedaan inay taageeraan xisbiyadooda qaran iyo dawladooda iyo ummadooda inay taageeraan. marka waxaan dirjeeyaa in dadaalkaasi sii socdo. ujeedadeedu waxay ahayd inaan la kulanno madaxda safaaradaha iyo hay'adaha jaaliyadana la kulanno, cidna kala kulanno dawladda Kenya. intii aan joognay waxaan la kulannay madax ka socota safaaradda Danish-ka, safaaradda Holland ama Netherlands, Norway, Ingiriiska, Mareykanka iyo madax ka socota midowga Yurub ee EU-da intaba. waxaana ugu dambeyntii xafladdaasi soo gunaanaday gudoomiyaha xusbul xaakinka kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. xisbiga waxaynu samaysanay inaynu kaga baxno qoqobnaanta qabiilka. xisbiga waa inay naga saaraan qabiilka iyo qoqobnaanta iyo reerka, waa inay isugu beeraan fikrad ay ku tartamayaan oo ah saddexda xisbiga oo akhrido barnaamijkooda ama waxay ku hadlayaan waa sugi. waxaan ka simannahay qadiyadda Soomaaliland laga barbariyo. waxay ka siman tahay in wadahadalka Turkiga laga ka jiitamaya iyo muranka qolada muqdisho lagu haysa inay tahay naga ku imaysaa saddex xisbi waxa ka geysay in runta ay tahay oo loo sheegay Soomaaliland waa qaran xor ah oo aan cidna ilaahay weyn uga magalahayn wadahadalka saarada Soomaaliland. Cabdullaahi Cabdi Cali, TV qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Nairobi.